kulanti hagaagsan halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa qayb ka amisom oo sheegatay guulihii shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka gaareen dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo qaar kamid ah shacabka Soomaaliyeed oo si adag uga falceliyay qaybo cusub oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo mar kale cilaamiyay dagaal ka dhana kooxda al-shabaab guddiga doorashooyinka Somaliland oo sheegay inaysan qaban karin doorasho waqtigeeda ku dhacda oo Somaliland ka dhacda iyo muddo kororsi uu sameysanayo Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo markii ugu horeysay shaaciyay qorshe ay ku heshiiyeen asaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Suudaan oo shaacisay inay Soomaaliya ka taageerayso sidii amnigeeda ay dib ula soo noqon lahayd qodobadaas iyo qodobo kale oo daasanayaad ku daawan doontaan warka dunida TV aynu ku horeyno ciidamada amisom ee jooga gudaha dalka Soomaaliya ee loo yaqaan ADMIS ayaa guulihii ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ka gaareen dagaaladii ay la galeen al-shabaab sheegtay guulahaas iyagu ka dambeeyeen qoraal ka soo baxay howlgalka ADMIS ee ururka midowga Afrika ayaa looga hadlay howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo kamid ah gobolada Hiiraan iyo sidoo kale Galgaduud waxayna sheegteen in guulahaasi amisom ay door muhiim ah ku leedahay ADMIS waxay shacab ka qaaday inay ka qayb gasho howlgalladaas isla markaasna ciidamadeedu ay wax ka qabteen deegaanada Aboorey يا صومن يا بوعو وكترسن قبل كهيران يديقان نقل وكترسن قبل كجلجد إسلام مركزنا لقى سارة كوحدة howlgalka ADMIS waxa ay qoraalkooda marraba aysan ku xusin kaalinta shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan maleeshiyadka macawsleyda oo iyagu horkacayay kacdoonka ka dhanka kooxda kana jiray qaybo kamid ah gobolka Hiiraan ciidamada ADMIS waxay u muuqdeen inay sheegteen guulihii shacabka Soomaaliyeed ay waqtiga badan ku taamayeen iyagu gacantooda ay ku keensadeen waxayna muujiyeen in howlgalka door muhiim ah ay ka qaataan ciidamada ADMIS qaar kamid ah shacabka Soomaaliyeed ayaa si adag uga falceliyay arrintaasi waxayna ku tilmaameen ciidamada amisom inay ka been sheegeen shaqadii ay dalka ka hayeen ciidamada amisom ayaa lagu eedeynayay maalmihii ugu dambeysay inay ku guuldareysteen shaqadii ay u joogeen Soomaaliya isla markaasna ay mushaarkooda oo ku ilaarsadaan joogitaanka Soomaaliya waxaana la rumaysan yahay in arrintaasi ay keentay in amisom ay sheegato guulihii shacabka Soomaaliyeed ay ka keeneen dagaalkii ay la galeen al-shabaab ee ka dhacay gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa dad badan oo Soomaaliyeed waxa ay si adag ugu cambaareeyeen howlgalka ADMIS ee Soomaaliya waxaana laga dalbaday inay raali gelin ka bixiyaan maadaama aysan door muuqda ku lahayn howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada dalka qaar kamid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa mar kale cilaamiyay inay door muhiim ah ka qaadan doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab beela cusub ayaa ku soo biiray howlgalka ka dhanka al-shabaab ee dalka oo dhan gulufkiisu ka soconayo beelahan waxa ay shaaciyeen inay qayb ka noqonayaan howlgalka ka dhanka kooxda ee gudaha dalka ka bilowday isla markaasna ay qayb muhiim ah ka qaadan doonaan saraakiisha iyo sidoo kale xildhibaanada beesha Gaaljecel Samow oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegay inay ku biirayaan howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya gobolada dalka gaar ahaan gobolka Hiiraan beesha Gaaljecel waxa ay sheegeen inay qayb ka noqonayaan howlgallada oo ay xoojinayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ee gobolka Hiiraan dagaalkana kula jira al-shabaab waxa ay sheegeen inay garab istaagi doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay door muhiim ah ka qaadan doonaan beesha Gaaljecel ayaa kamid ah beelaha inta badan deegaanadeeda al-shabaab ay ka arrimiyaan waxayna wacad ku mareen inay qayb ka qaadan doonaan xoreynta dalka dhanka kale talan kulan weyne ay gaalkacyo iskugu yimaadeen beesha Saacad oo kamid ah beelaha gobolada dhexe ee dalka ayay ku sheegeen inay door muhiim ah ka qaadanayaan xoreynta dalka maadaama deegaanada ay ka degaan gobolada dhexe ayagu ay yihiin kuwo xoreysan al-shabaab ku sugneen beesha ayaa sheegtay inay ku taageeri doonaan
keenaan ciidamo iyo saanad military dadka kaleete ee deegaanadooda la haysto si ay isku xoreeyaan. beesha Sacad ee degta gobolada dhexe ayaa sheegtay inay ka go'an tahay wax ka xoreynta deegaanada al-shabaab ay maamulaan si ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka ay dib gacantooda ugu soo gasho. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday inaysan doorasho waqtigeeda ku qaban karin, taas oo ka dhigan in muddo kororsi uu sameysanayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay in aysan xilligan ku qaban karin doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo ku aastaysan 13 November, taas oo ka sii daraysa xiisada taagan sare u sii qaadaysa. qoraal ka soo baxay guddiga ayay ku shaaciyeen 3 qodob oo isla uga dhigeen go'aanka haatan ay soo saareen ee doorashada guud ee Soomaaliland. guddiga ayaa go'aankiisa u sababeeyay arrimo farsamo iyo kuwa dhaqaale oo xilligan haysta Soomaaliland. go'aanka ka soo baxay guddiga waxa sidoo kale ay ku cadeeyeen in doorashada ay ku qaban karaan farsamo ahaan muddo 9 bilood oo way u baahan yihiin waqti dheeraad ah. in doorashada madaxtooyada Somaliland oo qorsheedu ahaa in la qabto 13 November ee sanadan 2022 oo ah bil ka hor dhamaadka muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aan farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaan ku qabsoomi karin. labo in komishanka doorashooyinka qaranka ay farsamo ahaan ku qaban karaan doorashada madaxtooyada muddo 9 bilood ah oo ka bilaabanaysa Agoosto 2022. gabadha komishanka doorashooyinka qaranku waxa muddada 9 bilood isku diyaarinaya dhammaan farsamo dhaqaale ay u baahan yihiin iyo diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada madaxtooyada. arrintan ayaa u muuqata inay sare u sii qaadi doonto xiisada cakiran ee u dhaxaysa xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda, waxayna kordhin doontaa isku horimaadyada iyo doodaxyada ka dhacaya deegaanada Soomaaliland. xisbiyada mucaaradka waxay sheegeen inaysan aqbali doonin waxay ugu yeereen muddo kororsi uu sameeyay Muuse Biixi Cabdi. golaha guurtida Soomaaliland ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo in muddo kororsi loo sameynayo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi si loo qabto doorasho muddaxileedkeeda isla markaasna ay waqtiga ay guddigu u baahan yihiin la siinayo. qorshahan waxa loo arkaa inuu yahay muddo kororsi uu ka shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. ugu dambeyntiina xukuumadda Suudaan ayaa sheegtay inay Soomaaliya ka taageeri doonto sidii amnigeeda ay dib ula soo laaban lahayd. Suudaan waxay sheegtay inay garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed ee dadaalka xooggan ugu jira in ay qaataan tilaabo walba oo ay ku suurta gelinayaan inay amnigooda dib ula soo laabtaan. Suudaan waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay in dowladda federaalka ay xoojiso taageerada ay siinayso isla markaasna ay ka qayb qaadato sidii Soomaaliya ammaankeeda iyadu gacanta ay ugu dhigi lahayd iyadoo laga hortagayo wax walba oo sameyn kara qorshe la xiriira dhinaca amniga Soomaaliya. Suudaan waxay diyaar u tahay garab istaaga iyo hiilsiinta dowladda federaalka ee dagaalka kula jirta kooxda al-Shabaab, waxayna taageeraysaa qorshaha amniga qaranka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Suudaan. warka ka daawanaysa Dunida TV waa inta sidaas.